ololihii af Soomaaliga ee la qoray 72 af Soomaaliga gobolada la aaday dadkii maaragtay baxay ayaan ka mid ahaa waana la qaybiyay aniga waxaan joogay degmo la yiraahdo Mushaane oo Shabeellada Hoose ka tirsan sida loo soo dhaweynayo sida loo qiimeynayo sida dhalinyarada guri aadan aqoonin reer baa lagu jaalay reerkaas aad la joogaysaa waxaan dadkii ku amarnay inay shaqada dadkii u shaqeeyaan inay soo fasaxaan geedaha hoostooda ayaa wax ku bareynay sabuuradeeda aan suulinayna dadka reer miyiga ah iyagoo maaragtay aan ka fikirin wax kaleeto oo maxaana loo soo bixina aan lahayn iyagoo raali intay geedaha hoostooda safaarkaystaan inay alifbeetadii baranayeen oo markaas aan iyagoo wax yaqaano waxna qori kara waxna akhrin kara aan ka soo noqonay taas waxay ahayd guul weyn oo la taaban karay ahayd afka hooyo waxa igu dhiirigelinaya in aan maaragtay ku mintido inaan suugaanta u curiyo inaan dhalinyarada wacyigeliyo inaan ku taagnaado hooyana waa macalinka koowaad ee afka hooyo hees xasuustayda iyo qalbigayga baaldahab uga jira heeskaas wuxuu ahaa gumaysta iyo la jiree gushayada ninkii nacab fartayadu ninkay gubi gidaarka madax ha ku dhuftee maxay iga galay waxba gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada inay buugaagta qoraan inay sheekooyinka qoraan idinkana waxaan idin leeyahay hawsha aad wadaan ha ka daalinin howlkama daala weli waa ogadi Soomaaliya waxay rabtaa dad u shaqeeya